رئيس الوزراء حكومة فدرال كاي سوماليا يا دافوري شركة دبشتين تبيلها دجاجة دولة قبلات كصومالية دي قلمدوق وعلى رئيس الوزراء شركة كدافوري مقالة دوسمرية بحرونتها دولة قبلات كقلمدوق شركة يا وحى كسوقيب قل دمان إرجوين كلوجو تلقى لي كواس ولا قرشيني كي مادان دجاجة أي دجاجة دتك كوابتر سدمام كقلمدوق كسوقيب قل كشركة فريتان كيسا يا وحى أودما جودهان قلياش دولة فدرال كاي سوماليا قلياش قلمدوق iyo marti sharaf kale oo lagu marti qaaday ugu horeyntii goobta waxa ka hadlay gudoomiyaha guddiga dibirsiinta beelaha galmudug Dr. Cabdiraxmaan Cabdilaahi Baadiyo waxaana uu guul ku tilmaamay furitaanka shirka dib u heshiisiin markaan dhahayno marka oo aasaaska bulshada uga dhigayno waxa waay in la isku yimaado horta dib u heshiisiin 500 ergeyna isku timaado intaan wax dhabaano iyo wasiiro oo caawa ra'iisul wasaaraha qaranka nala jooga dib u heshiisiin ka weyn horta ma jirto maxaa yeelay kulligeena isku qalbi ah oo isku niyad ah oo isku dhinac u jeedna ayaan caawa waxaan u xafladaynaa arooska cusub ee galmudug cusub aan sheegaya in caawa u xafladaynaa marka dib u heshiisiinta waa ansaxnaba markaan shirkaan dhameysano oon ku heshiin wax sax inaan dhisano markaas ka bacdi siyaasadda bilaamaysa isjiid waa bilaamaya farasku fiiqna waa bilaamaya laakiin waa laga wada hadli doonaa hay'adana waa laga heshiin doonaa waxaa jira rag isla jooga waxaan way yaqaanaysa uga heshiiyaan gaar ahaan odayaasha dhaqanka aad u mahadsantihiin waxay noogu dhamaan doontaa inaan xaflad aan madaxweynaha la dooro doono aan ku soo dhaweyno aan ku aroosino oo galmudug dawladda aan ku aragno ayaa noogu xigi doonta insha Allah waa mahadsantihiin wasiirka arrimaha gudaha dowladda federaalka ee Soomaaliya Cabdi Maxamed Sabriyo oo asna goobta ka hadlaya sheegay in wasaaradda ahaan ay juhdi galiyeen si loo heli lahaa shirkan inuu ka furmo magaalada Dhuusamareeb ayna bulshada galmudug isugu timaado maalmaha soo socda ka bilaabata berri waa wada joogi doonaa haddii alla yiraahdo waxaan ay sameeyeen guddiga arrinka noo daadihinayo guddiga dib u heshiisiinta barnaamij isdabayaal oo ka bilowda furitaanka caawa ilaa iyo galmudug isku gacan qaado dhabaha toosan oo ay ku gaari karto wanaageeda iyo horumarkeeda iyo dib u dhiskeeda inay isku raacdo soo kala goobta waxa ka hadlay Sheekh Maxamed Shaakir Cali Xasan oo madaxa xukuumadda wuxuuna bogaadiyay sidii wax u socdaan iyadoo ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka ee Soomaaliya soo gabagabay munaasabada kuna dhawaaqay furitaanka shirku oo sheegay inay aad ugu faraxsan yihiin ka dawlad ahaan sida ay wax u socdaan wuxuuna u sheegay in looga fadhiyo bulshada galmudug inay tilaabo hore u qaadaan nidaamkaas inaan sii xoojino oo noo dhalo dawlad goboleed kulligeen aan ku wada qanacsanahay sidaas daraadeed ayaan caawa waxaan halkan ka cadeynayaa marka ugu horeysa in shirkii dib u heshiisiinta dawlad goboleedka galmudug uu noo furan yahay kulligeen aan ka wada qayb galayno waxaa kaloo soo jeedinayaa codsi ah way noo dul qaateen culimmadii ahlu sunna magaalo madaxdii waan isugu nimid ciidamadii waa la qarameeyay kuwa amisom way joogaan ku dhawaad 1,000 ergaa iyo madaxdii galmudug oo dhan ayaa halkan fadhida waxaan idinka codsanayaa fursadan iyada inaan laga lumin reer galmudug wasaaraha xukuumadda federaalka ee Soomaaliya ayaa inta uu ku sugan yahay galmudug wuxuu safar ku tagi doonaa deegaano kale oo ka tirsan dawlad goboleedka galmudug Cabdi Jamaal Macalin Axmed Kalsan TV Dhuusamareeb